qaaradda ugu yar adduunka, qaaradda kaliya isku ah waddan iyo jasiiradda ugu weyn caalamka, qaaradda kaliya laga helo kanguruuska, qaaradda kaliya laga helo shimbirka ugu yar dunida, qaarad leh in ka badan 10,000 oo xeebood, qaaradda kaliya codaynta doorashooyinka ay qasab tahay, qaaradda ay ku dhawaad 90% dadkeeda ay ku nool yihiin agagaarka xeebta. Waxaan ahay Jaabir Cusmaan JB, halkan waa madashiina Xikmaso. Waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa hal like iyo hal subscribe inaad saarto channelkeena Xikmaso. daawadaha waxaan ka hadlayaa maanta mowduuc aad wax badan ka faa'iidi doontaan. wax ka baro qaaradda ugu yar caalamka ahna waddan iyo jasiiradda ugu weyn caalamka, qaaradda Australia. qaybta ugu dambaysa muuqaalkeena waxaan kula wadaagi doonaa 15 xaqiiqooyin cajiib ah aadan hore aaga ogeyn qaaradda Australia. nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalka. haddana ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Australia waa qaaradda kaliya sidoo kale waddan ah. Australia waa waddan aad u ballaaran oo soo jiidasho leh. wuxuu leeyahay cajaa'ibta ugu badan dunida, duurjoog naadir ah oo kala duwan, iyo hiddo dhaqameed qani ah. laga bilaabo muuqaalkeeda quruxda badan ilaa taariikhdeeda xiisaha leh, Australia waa dalka lixaad ugu weyn adduunka. wuxuu ku fadhiyaa 7.7 milyan kiiloomitir iskuweer. magaca rasmiga ee waddanka waa Commonwealth of Australia. Australia waxay bixisaa xaqiiqooyin soo jiidasho leh oo ka dhigaysa meel aan ahayn. Australia waxay hoy u tahay in ka badan 60 noocood oo kanguruus ah. guriga Opera House ee Sydney ee ku yaal gobolka Sydney waa mid ka mid ah dhismaha ugu caansan adduunka. saxaraha weyn ee Victoria ee ku yaal galbeedka Australia iyo koonfurta Australia waa saxaraha ugu weyn Australia. Australia waxay leedahay tirada ugu badan ee geela adduunka, iyadoo in ka badan 1 milyan oo geel ah ay wareegayaan banaanka. Australia waa qaaradda ugu qallalan adduunka. The Great Artesian Basin oo ku taal bartamaha Australia waa mid ka mid ah keedka biyaha dhulka hoostiisa ugu weyn ee adduunka. qaaradda Australia waxay hoy u tahay 21 ka mid ah 25 mas ugu sunta daran adduunka oo ka mid yahay Taybaan, sidoo kale loo yaqaan maska daran. webiga Mary oo mara koonfur bari Australia waa webiga ugu dheer dalka Australia. Australia waxay hoy u tahay qaar ka mid ah dhirta iyo xayawaanka adduunka ugu gaarka ah oo ay ku jiraan geedaha eucalyptus, koalas, wallabies iyo wombats. Australia waxay caan ku yihiin jaceylka isboortiga, kriketka, rugby-ga iyo qaanuunka. Australiyaanka kubadda cagta waxay ka tahay madadaalo caan ah. maalinta Australia waxaa la xusaa oo loo dabaaldegaa 26 Janaayo. Australia waxaa badanaa loogu yeeraa Land Down Under, meesha ay ku taal ee hemisfeer koonfureed awgeed. mid ka mid ah xaqiiqada caanka ee ku saabsan Australia ugu layaabka badan waa in ay hoy u tahay qaar ka mid ah xayawaanka ugu dilka badan adduunka oo ay ku jiraan masaska, caarada iyo xayawaanada badda. si kastaba ha ahaatee, tilaabooyinka caafimaadka adag ee Australia iyo horumarka caafimaadka ayaa ah kuwa la isku halayn karo oo kaalintooda si waxan u qaata. taariikhda Australia, degnaanshaha bini'aadanka ee qaaradda Australia waxaa lagu qiyaasaa in ay bilaabatay 50,000 ilaa 65,000 oo sano ka hor, iyada oo dadka u haajireen buundooyinka dhulka iyo marin gaaban oo badda laga soo galo hadda koonfur bari Aasiya. Australiyaanka asaliga ah waxay ka kooban yihiin 2 kooxood oo waaweyn: Australian Aboriginal, kuwaas oo ah dadka asaliga ah ee kala duwan dhulweynaha Australia iyo qaar badan oo jasiiradaheeda ah oo ay ku jirto Tasmania. Torres Strait Islanders, kuwaas oo ah dad Melanesia ah oo ka soo jeeda jasiiradaha Torres Strait. Australiyaanka asliga ah hoyga dhagaxa Majid Pepe ee Ironham Land ayaa suurtagal ah inuu yahay goobta ugu da'da weyn ee muujinaysa joogitaanka aadanaha ee Australia. hadhaaga bini'aadamka ee ugu da'da weyn waa haraaga Mongolike, kaas oo la soo bandhigay ilaa 42,000 oo sano ka hor. dhaqanka Aborigines-ka Australia waa mid ka mid ah dhaqanka joogtada ah ugu da'da weyn dunida. Australia waxaa badanaa lagu naanaysaa qaaradda jasiiradda, waxaana loo tixgeliyaa jasiiradda ugu weyn adduunka. Australia inteeda waa oomane ama qalalan tahay. sanadkii 2021 Australia waxay leedahay 10% deeqsimeedka joogtada ah ee caalamiga ah. daboolka kaymaha Australia waa qiyaastii 17% badka dhulka Australia. dhulweynaha Australia waa mid siman oo leh celcelis ahaan dhirirka 325 mitir 1,066 feet marka lala bardhigo 370 mitir 2,085 feet dhammaan qaaradaha. dadweynaha Australia waxay ku aruursan yihiin cirifyada xeebaha qiyaastii 95%
boqolkii dadka waxay ku nool yihiin meel 100 kiiloomitir u jirta xeebaha. celceliska adduunka waa 39. Australia waa 3.5 degane kiiloomitir laba jibaaran, taas oo ka mid ah kuwa ugu hooseeya adduunka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro badan dadweyne ah oo ku nool magaalooyinka ku teedsan xeebta qabow ee koonfur bari. cufnaanta dadkeeduna waxay ka badan tahay 38 degane kiiloomitir laba jibaaran ee bartamaha Melbourne. Australia waxay si buuxda uga go'day qaaradda barafka Antarctica qiyaastii 35 milyan oo sano ka hor, waxayna sii waday inay u socoto dhanka waqooyi. awowyaasha Aborigines-ka Australiyaanka waxay bilaabeen inay ka yimaadaan koonfur bari Aasiya 50,000 ilaa 65,000 oo sano ka hor, muddadii glacial ee ugu dambeeyay waqtigii degitaanka Ingiriiska. Aborigines-ka Australiyaanka waxay ku hadli jireen 250 luqadood oo kala duwan, waxayna lahaayeen mid ka mid ah dhaqamada nolosha ugu da'da weyn adduunka. taariikhda qoran ee Australia waxay ka bilaabantay saameynta Netherland ee inta badan xeebaha qarnigii 17aad. gumaysiga Ingiriiska wuxuu bilaabmay 1788 markii la aasaasay gumaysigii ciqaabta ee New South Wales bartamihii qarnigii 19aad. qaaradda inteeda badan waxaa sahmiyey degayaashii reer Yurub. waxaa la aasaasay 5 kale oo ismaamul oo Ingiriisi ah, mid walbana waxa uu helay dowlad mas'uul ah 1890kii. gumaystayaashii waxaa la midoobay 1901dii iyada oo samaystay Commonwealth of Australia. tani waxay sii waday geedi socodkii kordhinta madaxbanaanida boqortooyada Ingiriisiga oo ay iftiimisay xeerka kordhinta Westminster 1942 oo ku dhamaatay falimaha Australia ee 1986. Australia waa dimuqraadiyad baarlamaan federaal ah iyo boqortooyo dastuuri ah oo ka kooban 6 gobol iyo 10 dhul. caasimadda Australia waa Canberra, halka magaalooyinka ugu dadka badan Australia ay yihiin Sydney iyo Melbourne oo labada ay ku nool yihiin in ka badan 5 milyan. Australia dadka ku nool waxay gaarayaan 28 milyan oo qof. dalka Australia afka qaranka uu ku hadlo waa af Ingiriisi. lacagta laga isticmaalo Australia waa AUD Australian dollar. koodhka wicitaanka Australia waa +61. Australia wuxuu leeyahay mid ka mid ah dadka ajaanibka ugu sareeya adduunka. Australia waxay leedahay dhaqaale aad u horumarsan. GDP-ga sanadlaha wuxuu gaarayaa 1.9 trilyan, halka qofka dakhliga ugu sareeya sanadlaha soo gala uu yahay 72,000. kheyraadka dabiiciga ah ee badan iyo xiriirka ganacsiga ee caalamiga ah oo si wanaagsan u horumaray ayaa muhiim u ah dhaqaalaha dalka. Australia waxay si heer sare u qiimeeyaan tayada nolosha, caafimaadka, waxbarashada, xorriyadda dhaqaalaha, xorriyadda madaniga ah iyo xorriyadda siyaasadda. Australia waa quwad dhexe, waxayna leedahay qarashaadka militari ee 13aad ee adduunka. waa xubin ka tirsan kooxaha caalamiga ah oo ay ku jirto sida Qaramada Midoobay, G20, OECD, ururka ganacsiga adduunka, iskaashiga dhaqaalaha Aasiya, madasha jasiiradaha Pacifica, ururada difaaca iyo amniga ANZUS iyo shanta indhood. sidoo kale waa xulafada ugu weyn ee aan NATO ahayn ee Mareykanka. cimilada Australia waxay u dhaxaysaa kuleel qoyaan ee waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ilaa oomanaha ee bartamaha. koonfurta xeebuhu waa dhexdhexaad iyo qoyaan leh baraf. qabowaha iyo barafka koonfur bari ee buuraha iyo Tasmania. guud ahaan dhulweynaha Australia waa qaaradda ugu qalalan oo leh celcelis ahaan roobab sanadle ah 470 milimitir, qiyaastii 70% dalku waa oomane ama qalalan iyo qiyaastii 18% waa saxare. 15 xaqiiqooyin oo yaab leh laga yaabo inaadan hore aaga maqlin dhulweynaha Australia. xaqiiqada koowaad, Australia waa jasiirad, wadan iyo qaarad. waa jasiiradda ugu weyn adduunka, waa dalka lixaad ugu weyn caalamka, laakiin ah qaaradda ugu yar. Australia waxay la mid tahay masaafada London iyo Moscow isku jiraan. xaqiiqada labaad, inta badan duurjoogta qaar ee Australia lagama helo meel kale ee adduunka ah. tusaalooyinka waxaa ka mid ah koalas, kookes, platypus, wombats, emus iyo kangaroos. duurjoogtaas aan soo tiriyey meel aan Australia ahayn lagama helo. xaqiiqada saddexaad, naasleyda Australiyaanka ah platypus iyo echidnas waa labada naasley keliya ee adduunka ku nool ee ukunta u bixiya si ay u dhalaan. xaqiiqada afraad, dhulweynaha Australia waxay hoy u tahay 1,500 nooc oo caara ah iyo 4,000 nooc oo quraanjo ah. xaqiiqada shanaad, Australia waxay leedahay in ka badan 750 nooc oo xamaarata ah, in ka badan wadan kasta oo adduunka ah. yaxaasbiyuudka cusbada ah ayaa tusaale u ah waa xamaaratada ugu weyn adduunka, waana mid ka mid ah makhluuqa ugu da'da weyn ee meeraha. xaqiiqada lixaad, dadka Australiyaanka ah waxay leeyihiin af-yaqaan ama af-ku-saar, mararka qaarkood loo yaqaano Australian ama Australian. iska ilaali bloog, nin iyo shaylaa naag. erayadan waxay ku yaalaan musqulaha dadweynaha. xaqiiqada toddobaad, magaca Australia wuxuu ka yimid erey Laatiin ah oo ah Australis oo micnaheedu yahay koonfurta. xaqiiqada
sideedaad kangaroos iyo emus gadaal uma socon karaan, waxay ku sawiran yihiin jaakada hubka ee Australia. astaantu waa horumar. Australia hore ayay u socon kartaa oo kaliya ayaa laga wadaa. xaqiiqada sagaalaad waxaa jira in ka badan 10,000 oo xeebood Australia ah. haddii aad booqato hal xeeb oo cusub waxay qaadan doontaa ilaa 30 sano inaad aragto dhammaantood. xaqiiqada 10aad Canberra oo ah caasimada dalka Australia waa magaalo yar oo ay ku nool yihiin 472,000 oo qof oo u dhaxaysa Melbourne iyo Sydney. goobta waxaa loo doortay inay noqoto caasimada Australia 1908 si tanaasul ah, iyadoo Melbourne iyo Sydney ay rabeen inay noqdaan caasimada. xaqiiqada 11aad The Great Barrier Reef oo ku taal xeebta Queen Island waa nidaamka reefka ugu weyn adduunka. waa dhismaha kaliya ee ugu weyn adduunka oo ay sameeyeen nooluhu. waxaa laga arki karaa hawada sare. xaqiiqada 12aad Kagari oo hore loo oran jiray Fraser Island oo sidoo kale ka baxsan xeebta Queen Island waa jasiirada ciidda ugu weyn adduunka. xaqiiqada 13aad Australia waxay hoy u tahay qaar ka mid ah saameynta dhagaxyada ugu da'da weyn uguna qadiimisan ee dhulka. xaqiiqada 14aad Australia gudaheeda kangaruuska ayaa ka badan bini'aadamka. kanguru waa mid ka mid ah noolaha ugu caansan Australia. qiyaasaha la sameeyay ayaa sheegaya in 50 milyan ah ay gaarayaan kangaruuska ku nool Australia, taasoo ka badan tirada dadka. xaqiiqada ugu dambaysa xaqiiqada 15aad tiknoolajiyada Wi-Fi aan isticmaalno waxaa ikhtiraacay qof Australian ah oo ka socday ururka cilmi-baarista sayniska iyo warshadaha ee dowladda dhexe Australia. ugu dambayn, haddii aad halkan nala soo gaartay aad ayaad u mahadsan tahay. haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar si uu dad badan u gaaro. la wadaag asxaabtaada oo share dheh. intaan muuqaalkan la ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.